بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مسلمين تكون أنا الدولة دعالة ليلة هل كان كدي جروب وإذا لك سود هذا كدي جروب واحد جرى دad badan oo xiiseeya cilmigan waxaad nagala soo xiriiri kartaa YouTube channel-kayga Kadiya Group iyo Facebook-kayga Kadiya Group blog-kayga kadiyagroup.blogspot.com haddii aad fariin ama noo hayso su'aal noogu soo dir kadiyagroup@gmail.com haddii aad ka heshay TV-gan subscribe iyo share casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay sidee Photoshop-ka far loogu sameeyaa sawirro kala duwan sidaas oo kale haddaba haddii aad doonayso inaad ku samayso soo fur Photoshop-kaaga marka aad soo furto Photoshop-kaaga waxaad imanaysaa halka ay ku qorantay file markaad kili karayso new baad ka tagaysaa new markaad ka tagto halka highlight garaysan waad ka masaxaysaa magaca aad doonaysid ku qoraysaa kadiye tusaale ahaan kadiye halkan width-ka waxaad ka dhigaysaa inta aad doonto sharti maaha inta aan ka dhigay inaad ka dhigto halkana height-ka sidoo kale kadib waxaad oranaysaa okay markaad tiraahdo uu sidaa kugu soo baxo halkaa quful baa ku jira qufulkaas ku xidhan sidee looga furaa waa waxba lagama bedeli karo sida looga furo halkaa qufulka u dhow ayaad double click siinaysaa double click markaad siiso button-ka yare okay ku qorantaad taabanaysaa u baxay layer bis ku bedelay halkaa t ay ku qorantay waa typing mar baad click siinaysaa halkaasaad dabeeta dhigaysaa waxaad doonayso tusaale ahaan waxaad ku qoraysaa kadiyaan ku qorayaanu intaa markaad qorto waxaad tagtaa halka ay ku qorantay edit markaad tagto free transformer ama control T intaad doontaad leekaysiinaysaa kadib halkaa saxa saaran waa submit baad odhanaysaa waxaad tegaysaa file open baad odhanaysaa inta sawir aad doonaysaa soo dooranaysaa tusaale ahaan anigu labaan soo doortayba amaba saddexba dheh sidoo keenii hore kadib qufulkanaad ka furaysaa halkaa double click baad siinaysaa move tool-kanaad soo qaadanaysaa markaad move tool-ka soo qaadato waxaad dul keenaysaa typing-kaad qortay control T ama intaad edit tagto free transformer baad ka dooranaysaa kadib waad leekaysiinaysaa farta submit baad odhanaysaa halkaa yare saxa saaranta kanaad dabeeto qufulka ka furaysaa sidii oo kale double click move tool-kaad ku qaadaysaa waxaad dul keenaysaa typing-kaad qortay isna edit baad tegaysaa free transformer ama control T labadaba waa la isticmaalaa inta badan control T baa yara hawl yar markaad sidaa u yarayso submit baad isna odhanaysaa sawirkan saddexaad aan imaado qufulkaad ka furaysaa move tool-kaad ku qaadaysaa markaad sidaa ugu dul qaato control T markaad sidaa u yarayso submit baad isna odhanaysaa submit markaad tiraahdo saddexdii sawirba ay qariyeen typing-kaad qortay ama qoraalkaad qortay waxaad imanaysaa saddexda sawir saddexdoodii layer adigoo right click lahaya adigoo control lahayaad click siinaysaa saddexdaba sidaa markaa saddexdiiba u select garoobaan waxaad tegaysaa halkaa ay ku qorantay layer markaad tagto halkaa ay ku qorantay create clipping mask saddexdii sawirba way dhex galeen
qoraalkii. Kadib waxaad odhanaysaa markaad doonayso inaad save garayso ama Ctrl S baad taabanaysaa oo ah save, ama intaad file tagto save odhanaysa as. Halkaa waa formatka waxaad ka dhigaysaa GPG ama GPEG. halkan magaca doontaad ku qoraysaa, desktop-kaad dhigaysaa. tusaale ahaan mid horaa kadiye ahaa aan ka baabiyo, kadiye 1 aan ka dhigo, dabeeto desktop-kan dhigay. kadib halkana okay baad sii odhanaysaa. okay markaad tiraahdo kadiye 1 halkaa keen, waa kaa keeni. sidaa markuu yahay, casharkeena maanta waxa uu ku saabsanaa sida Photoshop-ka far loogu sameeyo sawirro. haddaba subscribe iyo share haddii aad ka heshay TV-gan. haddii aad rabto casharraan fara badan oo cusub, subscribe.